khilaafkii siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka waxaa soo ifbaxday dhaqamo hor leh taasoo salka ku haysa ku takrifalka dakhliga dalka, deeqaha caalamka iyo canshuuraha shacabka laga qaado, kuwaas oo sifooyin qaldan ay u isticmaalaan hoggaanka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. howlaha ugubka ah ee ay dowladdan soo kordhisay waxaa ka mid ah bixinta laaluush toos ah oo la siiyo dadka ka aragtida duwan si ay u hirgalaan damacooda gaarka ah. dhaqamadan waxay ka fuleen meelo kala duwan sida dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. falalkan waxaa garab socda handadaad iyo cagajugleen ku aadan haddii aad rabitaanka ka hor timaado in dhibaato ay ku soo gaarayso adiga iyo ehelkaagaba. dhacdooyinkan waxaa hoggaanka u haya oo ka shaqeeya agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo kaaliyaashiisa xiriirka koowaadna la sameeya dadka la doonayo in la soo gacan geliyo. 4 Maarso bishan aynu ku jirnay ee sanada 2020 kooxdan waxa ay xiriir la soo sameeyeen taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow Gaashaanle Mahad Maxamed Islaam. dadka la hadlay ee xiriirka loo sameeyay waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ay xiriirinayeen shakhsiyaad kale iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda ee qaranka Fahad Yaasiin. waxaana loo ballan qaaday haddii uu sameeyo qodobo ay ka doonayaan 1 milyan oo lacag ah iyo sidoo kale in la damaanad qaadayo nolosha qoyskiisa iyo midiisa iyo sidoo kale dalacsiin ciidan. waxyaabaha laga codsaday waxaa ka mid ah in gebi ahaanba uu xiro isgaarsiinta degmada Afmadow iyo deegaanada ku dhow in ciidamada Jubbaland ee uu hogaamiye ee daraawiishta ah ee jooga degmada Afmadow inuu geeyo deegaanka Dhuyac Garoon. waxaa sidoo kale la faray oo laga codsaday in garoonka diyaaradaha degmada Afmadow uu muddo 1 saac haysto, halkaas oo dowladda federaalka Soomaaliya ay keeni doonto ciidamo si ay degmadaas ula wareegaan. Gaashaanle Mahad oo ka dharagsanaa qorshaha ay damacsan yihiin kooxdan ayaa markii hore waxa uu la wadaagay madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha ku shaqada leh, waxaana ugu dambeyn ay ku soo dhamaatay fashil. ay nooga sheekay Gaashaanle Mahad Islaam sheekadan bilowgeeda iyo halkii ay ku dhamaatay. salaan kadib waxaan rabaa xogaa yar oo akhbaar inaan la wadaago guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland. xogaga akhbaartu waxay ahayd xiriir ay la soo sameeyeen saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo bilowday taariikh 4 iyo sidoo ku soo dhamaaday iyo natiijadiisa iyo meeshuu ku dambeeyay yaan rabaa inaan xogaa faahfaahin aan ka bixiyo. cid kasta oo warkan aan duubaya ama aan ku hadlayo macnihii dhageysata warkan oo macnihii tafatiran iyo faahfaahintiisa waxay ka akhrisan kartaa oo kala socon karaan barta aan ku leeyahay macnihii Facebooka yaan si qoraal ah macnihii faahfaahsan oo sharaxaad dheera iyo wixii macnihii aan isniri yaan ku soo koobay. marka ciddii macnihii u baahan warkan faahfaahintiisa bartayda Facebook ay kala socon doontaa insha Allah. barnaamijka marka aan rabo inaan in la wadaago ee guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago wuxuu ahaa sidaan hore baynu ku sheegay waxaa xiriir la soo sameeyay saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyagoo iga dalbanaya inaan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya rabitaanka ee rabtay iyo dalabkeedana inaan fuliyo kabacdina la ila soo xiriirin doono madaxda qaranka macnihii ugu sareysa. hadal dheer kabacdi oo ahayd ninka ila soo xiriiray nin la yiraahdo magaciisa igu sheegay Axmed, lambaradiisana aan ku soo qoray bartayda Facebooka iyo cid kasto ila xiriiro xiriirka ila sameysay aan macnihii faahfaahintooda iyo lambaradooda iyo cid walba waxaan isnidaan ku soo daabacay halkaas. Axmed hadal dheer kabacdi oo Axmed wada hadalay wuxuu ii gudbiyay taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin oo iga dalbaday inaan la hadlo ninkaas oo sida uu wuxuu rabo ee dawladda ay wuxuu rabto qaabkaas inaan macnaheeyan ka dhageysto qaabkaan aan wax u fuliyo. kabacdi wuxuu ii gudbiyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin. xiriirku markii ugu horeysay uu bilowdayna waa taariikh 4 xilliga Fahad Yaasiin la ii gudbinayo waa taariikh 6 taariikh 6 xilli habeenimo oo saqdhaxa oo labadii dambe ee habeenimo yaan wada hadalay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin
wuxuu ii soo bandhigay qorshaha ay dawladda Soomaaliya ay rabto anigana ay iga dalbanayaan inaan fuliyo macnaheedu ay u baahan yihiin isaga oo mar walba macnaheedu oranaya wax kasta oo dalabkaaga ah oo ka rabto qaranka Soomaaliya waa lagu fulinayaa hadduu darajo yahay iyo hadduu macnaheedu hanti yahay wax kasta oo macnaheedu afkaaga ka soo yeedho oo dalab ah dawladda Soomaaliya aad ka rabto waa lagu fulinayaa ballantaana waxaa ku qaadaya aniga oo taliyaha nabad sugidda madaxweynaha qarankana waa lagu hadalsiin doonaa isagana wixii dalacaadaada iyo darajadaada aad macnaheedu aad ka wada hadlaysaan qaab noocaas uu Fahad oo hawsha uu igu dhigay anuguna xilliga iyada waan la qaatay aniga oo raba inaan yoolkooda ay rabaan ay higsanayaan inaan ka gungaadho oo meesha ugu dambaysa ee macnaheedu hadafkoodu uu yahay macnaheedu aan soo taabto xilliga iyada Fahad Yaasiin qorshaha koobaad ee uu soo bandhigay waxay ahayd inay bixiyaan tashiilaadka ciidanka aan anigu mas'uulka ka ahay si loogu gacan geliyo ciidanka iyo hubka iyo gaadiidka aan hayo inaan dawladda dhexe macnaheedu aan u gacan geliyo ka bacdiina aan gaadhsiiyo heer aan la dagaalamo macnaheedu maamulka Jubbaland aan ka hor imaado Fahad wuxuu yiri macnaheedu waxaan rabnaa ma hadow lambar 1 qodobku ila yimaadey koobaad waxaan rabnaa ciidankaaga inaad diyaariso shidaalka iyo tashiilaadka iyo mushaharka ciidanka iyo raashinkaba intaaba macnaheedu aan ka bixino inaad guurto oo tagta meesha la yiraahdo Dhuyac Garoon oo u maleynayo Afmadow inay u jirto 140 kilomitir qiyaasaan meelahaasaan qiyaasayo oo xagga xuduudka ka halkaasaan rabnaa inaad macnaheedu aad tagto halka marka tagto waxa ku iman doona oo soo degi doona diyaarad helicopter oo la socdaan niman saraakiil ciidan iyo injineero waxayna qiimeynayaan oo indhaynayaan meel laga dhiso garoon yar oo ay baldegi karaan diyaaradaha ciidanka lagu soo qaadi doona dhawaan injineeradaas markay ku yimaadaan qalabkii dhulka lagu hagaajin lahaa garoonka lagu xaaqi lahaa macnaheedu ay ku keenaan hadday suurtagal noqoto waxa laga diyaarinayaa meesha garoon yar oo macmala garoonka xilliga la diyaariyo ciidamada lagu keeni doona ka bacdi ciidamada xilligii meesha laga soo dejiyo waxa dawladda u sahlanaan doonta oo sameeynayna inaan qabsano meesha la yiraahdo Diif Doobley ilaa iyo Raas Kamboni guud ahaan xuduudka oo dhan qorshaha koobaad ee Fahad uu ila yimaaday sidaas oo ahaa runtii qorshahaas waan ka cudur daartay waxaan ku iri macnaheedu qorshe kale oo la imaada laakiin qodobkaas isaga ah dhulkaas leedin haloo kacana masaafo noo jira marka barnaamij kale inaad la timaadaan baan ka dalbaday xilliga iyada inta kadib qorshihii labaad wuxuu u dhaceeyay waxaan rabnaa ma hadow inaad tagto meesha la yiraahdo Doobley intaad ciidankaaga diyaarsato aad guurto aad tagto meesha la yiraahdo Doobley riboodka Doobley inaad qabsato saasaan ka rabnaa ciidanka dawladana xilliga airportka Doobley inaan isticmaalo oo laga soo dego qorshaha aan rabna saas weeye sidaas ma samayn kartaaba iyo iga dalbaday ninka la yiraahdo Fahad xaqiiqiyan runtii qodobkaas waan ka cudur daashay waxaan ku yiri meesha la yiraahdo Doobley amar la'aan xagga Jubbaland macnaheedu haddaan ku tago xilligan iyada waxa ku sugan madaxweynaha Jubbaland ammaankeeduna aad buu adag yahay goobta iyada ma tay karaan ku yiri waan ka cudur daashay ka bacdi wuxuu ii sheegay in qorshe kale ay qaadan doonaan oo dib la igu soo noqon doono abaar ka bacdi markuu iga maqnaaday wuxuu igu soo celiyay qorshu igu soo celiyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin qorshahaas oo oranaya waxaan rabnaa ma hadow barnaamijkii macnaheedu Doobley loogu kiciyay iyo kii Dhuyac Garoon loogu kiciyay labadaba inaan ka baxno qorshaha dawladdu inay Kismaayo qabsato ama Doobley qabsato ama ay qabsato meesha la yiraahdo Gedo waxa uga muhiimsan meel walba inaan qabsano meesha la yiraahdo Afmadow waxaan rabnaa qorshihii Afmadow in laga sameeyaan rabnaa oo Afmadow dhinacna loo dhaafin Afmadow
sida ciidanka macnihii dawladdu uu ku soo gaari lahaa inaad sahasho inaad macnihii aan soo diro ciidamo diyaarado garoonka aad qabsato ciidankaaga laba meelood aad u qaybiso meel la xirada difaac ay ka xidhato meel aad u tagto airportka ka bacdi aad isku daydo hal saac kaliya ay macnihii inaad nagu simi karto si aan airportka aan u isticmaalo runtii qorshahaas waa la qaatay saasaan ku heshiinay ka bacdi waxaa la ila soo xiriiriyay oo ila soo xiriiray nin ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha oo la yiraahdo Yuusuf Cadaani la yiraahdo runtii lambaradiisa waxaan ku soo qoray bartayda Facebook iyo cid kasto ila soo xiriirday iyo wixii aan isla bartaasan ku soo daabacay oo mar walba cid rabta inay warkan ka bogato halkaas kala socon kartaa Yuusuf isagoo ii sheegaya inuu ka socdo xafiiska madaxweynaha in cadeynaya inuu ku faraxsan yahay madaxweynuhu arintan mar walbana uu arintan madaxweynuhu wax kasta oo dalbato oo dalab oo xagga ka yimaada inay dawladdu fulinayso hadal aan dheeron Yuusuf wada hadalay ka bacdi wuxuu igu geeyay telefonka oo igu yiri waxa ku raba madaxweynaha raba inuu kula hadlo madaxweynuhu telefonka igu geeyay xilli habeena oo malaynaya qiyaasaan ay ahayd 7 saac oo habeenimo saq dhexe madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri isagu hadal kooban buu yiri hadalkiisu ma badnayn marka koobaad wuxuu igu salaamay General Mahad waan ku salaamay runtii jarnaal lamaan ahayn anigu darajadaydu waxay ahayd gaashaan leh madaxweyne Farmaajo markuu wuxuu yiri jarnaal Mahad waan ku salaamay wuxuuna ii sheegay barnaamijkaas haddii go'aanada nabad sugidda qaranku ay ku soo gudbiyeen aad qaadato oo sida uu yahay aad u fuliso wax kasta oo macnihii dalabaada oo xaggaaga ka yimaada qaranku ku sameeynaya wax kasta oo fariin ama aniga aad iga baahan tahay waxaad u soo gudbinaysaa oo la soo socodsiinaysaa ninka la yiraahdo Yuusuf yaa la soo socodsiinaysaa lana shaqee nabad sugidda iyo Fahad Yaasiin go'aanadooda haddaad fulisana qaranku amal gudbu ku siin doonaa madaxweyne Farmaajo intaasaan isniri kadib waxa sii socday xiriirkii noo dhaxeeyay aniga ninka la yiraahdo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin wuxuu ii sheegay oo igu yiri waxaan rabnaa adiga Mahad shakhsiyan inaan ku siino lacag 1 milyan oo kaasha 1 milyan oo dollar haddii aad cid aad isku halaynaysa ama aad taqaana ay jirto oo Muqdisho joogtana waad ii soo diri kartaa oo kugu wareejiyo 1 milyan waxaan ku ballan qaadayaa oo aniga iyo madaxweynaha qaranku baan ku ballan qaadaynaa inaan adiga iyo reerkaagaba Turkiga aan guriga kaaga iibino lacagta 1 milyan aan ku siino intaasaan ku ballan qaadaynaa bi ugu yiri wax kasta oo codsato oo naga codsatana waan ku fulinaynaa waxaan ka rabnaa inaad macnaheedu nin sargaal oo qarankiisa u shaqeeyo aad noqoto mana rabno ciidan ahaan Jubbaland inaad macnaheedu ciidanka qaab qabiil aad u dhisnaataan waxaan rabnaa macnaheedu qaranka inaad la jaan qaadaan ma doonayna inaad macnaheedu ciidanka Jubbaland uu noqdo ciidan macnaheedu qabiil sida Somaliland oo kale iyo Puntland oo kale sidaas oo macnaheedu carabku macnaheedu uu igu dhuftay runtii ani iyo Fahad macnaheedu sheekadiina dhex martay way farabadneed way sii socotay wuxuu ii sheegay qorshahan inaan fuliyo afgambiga taariikh 10 oo ku beeganayd maalinta taariikh 11 oo ku beeganayd maalinta Arbacada inaan qorshahan aan fuliyo qorshaha macnaheedu qaabka loo fulinayo wuxuu ahaa Fahad Yaasiin uu jeexay in xilliga qorshahan la fulinayo guud ahaan macnaheedu la jaro ruudka anteenada afmadow oo laga jaro macnaheedu afmadow laga damiyo guud ahaan wixii ka hooseeya afmadow ee macnaheedu qooqaani iyo taabta dhoobley iyo diif hoosingo
intaasoo dhan macnihii anteenadooda in laga damiyo meesha la yidhaahdo afmadow kabacdiina horey waxaa u jirta in la ii weydiiyey macnihii inaan haysto turaayada macnihii satellite-ka macnihii ku shaqaysa aan una sheegay macnihii inaan haysto turaayada xilliga anteena la daminayo wuxuu ii sheegay inaan ka xidhiidhno turaayada inaan ka wada soconno oo turaayada ka wada xidhiidhno deegaankuna macnihii nadwaalaan ilaa xuduudka uu noqdo iyo dhulka macnihii madaxweynaha Jubbaland uu joogo uu nadwaagu uu ka go'o taariikhdu markay ahayd taariikh 9 waxaa dhacday haddaba inuu yiri macnihii waxaan ku soo diraynaa kharashkii aad ku fulin lahayd shaqada iyada tasiilaadkii baan ku soo diraynaa waxaan u baahanahay intaan kharashka aan soo dirin inaad dirsato kaarka turaayada oo meelihii aad ka soo gadan jirtay aad u dirsato waxay soo direen lacag $3,000 ah rasiidkeeduna ka yahay yay soo direen $3,000 waxay ugu tala galeen macnihii inaan ku dirsado kaarka turaayada oo turaayadiina waatan weeye aan ku shubto si dhawaan markii nadwaagu uu go'o macnihii aan uga wada hadalno turaayadan kabacdi haddana maalintii ka dambeysay waxay soo direen lacag $80,000 ah rasiidkeeduna waata iyadana waa $80,000 si fiicanna waxaad uga fiirin kartaan warqadda macnihii bartayda Facebooka $80,000 bay maalintii dambana soo direen kabacdi xawaalada lacagtii waan ka soo qaaday 3,080 total ahaan waxay isku noqotay $83,000 waxaanan si toos ah ugu wareejiyay wasaaradda maaliyadda Jubbaland yaan lacagtii u gacan geliyay xaqna u lahayd system ahaan inay iyadu maamusho inta kadib waxaa jiray oo xogta macnihii mar walba aan la wadaagayay oo informationka aan la wadaagayay madaxweynaha Jubbaland iguna amray xilligaas inaan joojiyo xiriirkooda marka barnaamijkii saasuu ahaa sidaasay ku soo dhamaatay sheekadii na dhex martay aniga iyo fila Soomaaliya wixii akhbaar ah kale ka kala tagayna waxaad kala socon kartaan qoraalka aan sameeyay mana aha wax iska been abuur ah oo cid raba inaan ku xadgudbo waa wax cadaynteeda ay tahay oo xawaaladihii lacagta lagu soo diray iyo rasiidkii lacagaha taa uu yahay weeye marka waxaan rabaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inay sidaa ula socoto gaar ahaan reer Jubbaland waxaan ka digayaa shacab iyo ciidan iyo maamul dhammaantiin inaan la kala dhexgelin waad aragtaan qaabka ay wax u socdaan inaad macnihii nabadiina iyo amnigiina iyo dalkiina aad ilaashataan iyo dawladnimadiina iyo maamulkiina iyo systemkiina iyo kala dambeynta la ilaaliyo ciidamada Jubbaland iyo shacabka Jubbaland saasaan ugu baaqahayaa tani markii uu socday wada hadalka dhexmarayay taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow gaashaanle Mahad Maxamed Islaam iyo saraakiisha ka socotay hay'adda nabad sugidda qaranka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha loo sheegay taliyaha waxaa ka mid ahaa in haddii uu fulin waayo dalabaadka ka imaanaya saraakiisha sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xafiiska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu wajahayo caqabado badan haddii uu fulin waayo dalabaadka loo soo bandhigay waxyaabaha loo sheegay waxaa ka mid ahaa in haddii rabitaankooda uu meel marin waayo uu wajahaya caqabadii uu wajahay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan waxa ay dul istaageen oo ay sharaxeen xaaladda Cabdirashiid Janan iyagoo sheegay in Janan lagu haysto kaliya inuu fulin waayo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya xilligii doorashada waxaana ay sheegeen in laga waayay arrimo dhowr oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbatay taasna ay keentay in caqabad looga dhigay in dambi dusha laga saaro waxa ay sheegeen in markii Muqdisho uu yimaado kol hore ay kula hadleen arrimahaas balse uu ka biyadiiday hase ahaatee ugu dambeyn uu wajahay xabsi iyo in dambi dusha laga saaro sida ay iyagu qeexeen waxaana ay fariin dadban u direen taliimahad oo ay leeyihiin haddii heshiiska naga aad diido waxaad wajahaysaa caqabada hadda uu wajahayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo ay dusha ka saareen dambi uusan lahayn arrimaha kale ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa inay u sheegeen in Galmudug ay lacag badan kaga baxday
waxa ay sheegeen in adduun gaaraya 5 milyan oo dollar ay ku furfureen saraakiishii galmudug ee garabka ahlusunna wal jamaaca waxaana ay sheegeen in lacagtaasi uu toos u bixinayay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoo uu gaarsiinayay raggaasi lacagtaasi in lagu soo koobay magaciisa Axmed oo xafiiska saadka u jooga hay'adda nabad sugidda ee Sodonka qaranka waxaa kaloo ka mid ahaa erayada uu yidhi taliyaha nabad sugidda macnihi Fahad Yaasiin ma rabna buu yidhi inaad qaado jidkii Cabdirashiid Janan uu qaaday oo kale ee uu hadda u dhimanayo oo ahaa buu yidhi macnihi ballan uu nala galay ka bacdiina uu ka baxay oo sidii loogu talagalay macnihi uusan waxba uga qaban oo u fulinin taasoo ahayd macnihi doorashadii Jubbaland oo la rabay inuu macnihi waxyaalo badan aan macnihi kaga ballanay ka bacdiina ballantii uu fulin waayay sidaa darteedna uu hadda u dhimanayo oo sababta macnihi dambiilaha uu noqday ee saa tahay wasiir Cabdirashiid Janan waad ogtahay wuu yidhi hadda ka hor inuu yimaaday macnihi Muqdisho ka bacdiina dambigii hore ee loo haystay macnihi aan ka cafinay warqad macnihi cadaynaysa cafiskiisana maxkamaddu inay siisay markan dambe waxa loo haystay loo baadigoobayo ee uu xidhnaa xamar uu xidhnaa hadda macnihi loola dagaalamay sababta ballanta uu nagaga baxay weeye marka sidaa daraadeed ma rabno inaad wadadii Cabdirashiid Janan oo kale aad qaado sidaana dambiile aad ku noqoto sida ninkaas oo kale intaana waxa iigu daray taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin waxaa kale oo iyaduna jirtay oo ninka la yiraahdo Axmed ninka lacagta soo diraya uu igu yiri oo hadaladiisa kamid ahaa ma hado hadda ka hor buu igu yiri waxaan hawlgalkii galmudug waxaan anigu gacantayda ku diray buu yiri oo saraakiishii ciidankii galmudug shaqada fulinaysay aanu diray lacag 5 milyan oo dollar intaana waxa igu daray ninka la yiraahdo Axmed aan jeclaan lahaa inaan baaq u diro oo la hadlo beesha caalamka deeqaha Soomaaliya macnihi beesha caalamka bixiya waxaana loogu talagalay lacagaha macnihi la bixiyo ee dawladda Soomaaliya la gaarsiinayo in dalka dib loogu dhiso in macnihi burburkii iyo dalkii soo kabanayay dawladnimadii iyo systemkii iyo nidaamkii in lagu hagaajiyo waxaana muuqata lacagaha deeqaha ee caalamku uu bixinayo inaan system lagu dhisaynin dawladnimo aan lagu dhisaynin in lagu burburinayo sisteemadii hore jiray maamuladii jiray lagu burburinayo lagu dhibaataynayo waxaana cadayn iyo macnihi marxaati macnihi DNA aniga oo sargaala oo ciidan haysta in macnihi lacagaha la isiyay iyo kuwa la ii ballan qaaday ay kuwa yihiin iyo kuwa aan xawaalada ka soo qaadayba marka lacagta qaranka Soomaaliya waa nasiib darro ee ummadda iyo dalkan dib u dhiskiisa loogu talagalay in loo adeegsado in lagu dhibaateeyo gobollo iyo ummad Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo waa arrin aad iyo aad macnihi nasiib darro waa runtii waxaana aad iyo aad macnihi ii cuntami weyday oo xaqiiqiyan ruux damiir la wuxuu qaato aan ahayn afmadow 9 sano ka hor baan macnihi al-shabaab aan ka xoreynay dadkii ku xoreeyay baan 9 sano ka hor al-shabaab aan ku jiray 9 sano afmadow baan joogay oo difaaceeda ku jiray waxaan diyaar u ahaa ama aan difaaca afmadow ugu jiray inaan shacabkayga iyo bulshadayda aan ka difaaco cadawaas al-shabaab ee naxariis laawayaasha dal iyo dad midnaba aanu aabayeelaynin aniga oo difaaca ku jira oo dadkaygii iyo dalkaygii diyaar u ah habeen iyo maalin inaan al-shabaab ka difaaco 9 sano ka hor afmadow ka xoreeyay al-shabaab inaan haddana macnihi la ii adeegsado meeshii aan ilaalinayay ammaankeeda iyo sukuuradkeeda in la ii adeegsado oo dadkaygii iyo waddankaygii iyo dalkaygii aan xoreeyeen cadawga hore uga xareeyay aan dhibaateeyo runtii waa arrin macnihi nasiib darro ah sidaas iyagu laakiin damceen arrin soconaysana ma aha waa diyaaradii Hargeysa intay ka kacday oo kale isla Hargeysadii garaacday oo kale san taariikhaha ku maqlay marka waxaan u digayaa guud ahaan bulshada reer Jubbaland ciidamada noocyadooda kala duwan saraakiisha aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wixii aan kala dhaafayna waxaad ka akhrisan kartaan oo kala socon kartaan qoraalka aan soo dhigay bartayda internetka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka reer Jubbaland
lama laayo balse way didiyaan yalidiin dabdablaynin agaldahaaciyayaasha iska daha in la doortee war hoyaa la damiinan isku soo wada duubo aanu jayay dada dooxo islaamku waa dar ilaahay iyo daacad shaqayne waa niman danta guud inaan dowlad ahaano wax ku doorsanahayne idinkoo isku duuban dibu doorashadiisa kulligiin